xilban ubax taaliil warsan ma karo soo mustaqbal media markii xiga wax ka mid tahay xildhibaanada golaha shacabka bal ka horna ugu horeyn sharciga maanta xirmaamulka bangiga dhexe la ansixiyay iyo aragtida sida kula tahay adigu bismillaahir rahmaanir rahiim bini aadanka aragtidiisu way kala duwanaan kartaa fikradiisa qof walba fikrad ayuu yeelan karaa laakiin aniga tayda ahaan waxaan rabaa wadankan waxa soo maray dad badan oo hantidii qaranka dhacay waana la wada ogyahay gabadha masaakiinta dariiqa fadhida waxay wax ku leedahay ayaa la dhacaa daily waxa jirta wasiir dawlihii hore ee maaliyadda in uu markuu asaga wasiir dawlaha ahaa inay ansixiyeen kambaniga airportka haysta ayaga ansixiyay xukuumadii hore dawladii hore xukuntay oo Turki ah waxa haddana la siiyay Turki dekadiya la siiyay waxa marka dhacday in dalkii hantidiisii qaranka ee boqolkiiba boqol isla laab dalkii ay soo gashay anoo jecel in qof Soomaali oo muwaadina la siiyo shaqada haddana waxa waaye aaminkii ayaa la la'yahay dalku hore inuu u shaqeeyaa la rabaa adduunka isdhexgalaa la rabaa horumar inaan gaarnaa rabnaa adduunka waxaa jira bangiyada adduunka way isku xiran yihiin waana isla shaqeeyaan deemaan lagu leeyahay dalka sideena looga cafinayaa hadda anaga hantideena dib u cunayno oo qaadanayno marka waxay noqotay hadda aniga Soomaali Canadian ka imid Canada markii burburkii ay dhacday oo collapse u dhacay dhaqaalihii gudoomiyaha bangiga ee Canada waxa qaatay oo uu shaqadiisii qaatay inuu shaqeeyo Ingiriiska oo haddana ka shaqeeya gudoomiyaha bangiga ugu sareeya ee Ingiriiska waa nin Canadian ah oo dalka waxa la rabaa ninka fiican ama qofka horumarka gaarsiin kara dalka waa la ogyahay Canada ma ay dhicin collapse ka dhicin markay Europe iyo Mareykanka iyo meelo kale ay ka dhacday dhaqaalahooda inuu hoos u dhaco Canada ma u dhicin waayo ninkaas ayaa gaarsiiyay meel sare dhaqaalihiis saasay noqotay in CV-giisii la qaato oo la geeyo asagoo Canadian ah in soo la geeyo Ingiriiska horta adduunka bangiyada kambaniyasha waaweyn waa international waxa la rabaa in adduunka uu ka shaqeeyaan waxa jirto kambaniyasha Toyota kale iyo waxa bangiyaasha iyo waa loo tartamaa adduunka marka in la yiraahdo la cusuriyeeyo dalka ma la rabo dhalinyaradeena waxaan ognahay Soomaali inay baasaboor maalin bala taagin leeyihiin waxaan rabnaa dibadda inaan aadno ma carruurteena rabnaa inaan dhibaateeno oo dibadda la yiraahdo dadkan dad ay ogol yihiin maba jirtaba mideeda kale bangiga maxkamadda ugu sareyso heeg nin Soomaaliyeed ayaa madax ka ah waxaad ogtihiin shacabka Soomaaliyeed in gabar Soomaaliyeed baarlamaankii Mareykanka maalin dhaweed loo dhaariyay waxaad ogtihiin wasiirka immigrationka inuu yahay Canada inuu yahay nin Soomaaliyeed yahay marka anaga Sweden waxaan ku leenahay xildhibaanaan ku leenahay adduunka waxaan ku leenahay xildhibaanaan ku leenahay London aan ku leenahay marka adduunkiiba dadkeennii qaadanayo shaqeynay anaga inaan niraan horumar baan ku gaareynaa waxaan kaga baxaynaa dhibaatada hadda ku jirno oo adduunka waan aqoonsanayaa si dhaqaalaheena kor ugu kaco in maanta laga soo horjeesto waxa waaye waa fikrad shacabkana laga dhaadhiciyay been laga dhaadhiciyay ninka xildhibaanada qaar kamida waa ninkii dhahaayay 30 milyan baan 30 jir baan 30 milyan baan haystaa wiligaa xoolo iyo hanti ku dhex jiray 30 sheegtay 500 kun ma hayst marka waxa weeyaan dalka in la wada dhaco rag raba ayaa laga hortaagan yahay waxa la rabaa in hantida qaranka ay kor u kacdo aqoonsiga bangigeena in hor u kaco bangigeena ma shaqeeyo waa ogtiin waa buul anoon ka xumeyn xawaaladaha jecel xawaaladaha Soomaaliyeed iyo fikradaha Soomaali ee keensatay laakiin bangigeena Swift code wax la yiraahdo xataa malaha oo adduunka uu ku aqoonsan maanta waa farxad in adduunka aan la jaan qaadayno wax marka qodob hadda waxa la bedelay oo dastuurka ku yaalay oo ahaa in bangiga dhexe u tartami kara xilka qaban karo qof Soomaali oo kaliya waxaan hadda laga dhigay in bangiga dhexe uu tartami kara xil uu qaban karo qof kasta iyadoo aan la xadidin oo Soomaali kaliya aan lahayn suurtagalnimada marka ah in qof ajnabi oo ka shaqeeya marka bangiga dhexe ee Soomaaliya marka waa mid nuucaan horta qof kasta oo waxa la yiri bini aadana waxa laga yaabaa inuu qof kale oo muslim yimaado qof Soomaaliyeed la tirkeedu inuu yimaado laakiin qof experience u leh oo adduunka wax ka keeni kara oo adduunka ay aqoonsan yihiin inuu san corruption sameeyay ma wili wax magacaaban ma jirto no wax been abuur waay
qofkii sharcigiisii oo la codeynin oo la hagaajinin qof in la magacaabo horta shaqo xumo waaye mucaaradka hadalkiisan in la qaado ma aha Soomaaliya mucaarad jaceelka ha laga daayo muxaafada loo baahan yahay dalka inuu shaqeeyo u baahan yahay shaqo in la qabtaa loo baahan yahay inaan nolol yeelno u baahanaa dhalinyarada in horumaraan rabnaa xildhibaan wax marka qofkan salahaan ka tada u tartamaya bangiga dhexaadii sale ajnabi ku guuleyso kale ma dhalashiisa ku shaqeynaya oo dalkiisa ay mise dhalasho Soomaaliya la siinaya qofka waa la gaari doonaa wax walba step bay leedahay stepkaas waa gaari doonaa hadii la yiraahdo waa tahay rayga marka maxay kula tahay marka adiga suuqgalmada marka hadii bangigan qof ajnabi loo dhiibo horumarinta bangigan iyo sida mataqaan Soomaaliya isku dili karta dhankii maaliyadda maxaa kula muuqata adiga gabadha loo dhaariyay baarlamaanka Mareykanka kutubkii muslimka ayay ku dhaaratay anoon dhehayna kutub kale iyo ajnabi kale ha lagu dhaarto laakiin shaqada siday tahay ayaa loo wadaaya dhinaca kale xataa adiga xildhibaan ay ka soo jeeda galmudug arimihii galmudugna oo ogtahay wali waa qasan tahay oo xildhibaanadii maamulkii galmudug laba qayb ay kala jaban yihiin bal galmudug marka dhankeeda marka ay xildhibaanadiina golaha shacabka maxay ka qorshaysan maxay kula muuqataa maamulkaas anigu qodob baan ka hadlayaa galmudug aan ka soo jeedaa state sare waa state aad u wanaagsan dad qiimo badan ay ka soo jeedaan waxaan aad aan hadda u hambalyeeynayaa wasiirka amniga oo shalay soo bandhigay cudud ciidan iyo isku tashiga waxayna mudan yihiin in la taageero dhammaan galmudug iyo dhammaan Soomaaliyeed in la taageero si meelaha yaryarka ah oo la haysto shabaabka naga haysto si looga qaado shabaabka waxa la og yahay galmudug inay lahayn meel shabaab degan yahay san lahayn meeshaas jirtaa tahay dadkii xoreeyayna waa dadka hadda soo bandhigay ciidankooda iyo hubkooda waan taageersanahay wasiirka amniga galmudug waxaan leeyahay hore u soco shaqo wanaagsan galmudugna ha isku tashato dalkana ha laga wada shaqeeyo gacmo wada jiro lagu wada shaqeeyaa marka insha Allah ciidudiina marka kaashataan ayaa ummadda kalena wax noo qaban kartaa xildhibaan marka waxa la sheegay xildhibaanadiina ka soo jeeda galmudug state in faraginaad ku heesana badi waxa la sheegay xildhibaanada labada dhinac ay u kala qaybsameen oo maamulka galmudug ka kala jaban yahay taa ma jirtaa marka xildhibaanadiina aad kala jabteen adiga xitaa labada dhinac kala noqoteen oo kala safateen wallahi nin maamulkiisa kala jabinaya ma jirto xildhibaanada guud ahaan markaan ka hadlaayo laakiin fikrad waa la isku diidi karaa qof walba si loo soo doortay ayuu ku shaqeeyaa ani shacabkayga iyo odayaasha dhaqanka ay soo doortay gobolkayga oo laga jecel yahay laga soo doortay laakiin qofkii si been ay qoloc ku soo galo oo meelihii tagi karin waxaan leeyahay karaa maba tagi karo waa inuu mucaarada meesha marka mucaaradna uma baahno galmudug insha Allah horay u soconaysaa wata galmudug ka hadda horumaradii sidoo kale iyo sidoo maamul wanaagii kama jiro oo maamulkii waa kala jaban yahay madaxweyne xafna iyo madaxweyne xambaas laba dhinac kala shaqeynayaan halku maxay idin kula muuqdaa xildhibaanadiina marka federaalka ay ka soo jeeda galmudug state wallahi xildhibaanada federaalka waa ku sheegay waa kala maqan yihiin waa kala jaban yihiin waxbay kala fikrad duwan yihiin bini'aadanka dhanaana saas ku dhisan maaha in la iswada raaco laakiin maamulkaas hal maamula jira insha Allah kan kale iyo waxa jirana waa isku imaan doonaa waa la heshiin doonaa wax dhibaatana ma jirto conflict interest baa jira laakiin dhibaato ma leho galmudug way hagaagaysaa horeyna u soconaysaa qof loo joojinaayana ma jirto